Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxa aan rabaa halkan in aan kala hadlo nin aan u malaynayo inuu yahay beelaha Banaadiriga oo uu ku nool yahay waddanka Talyaaniga sida la ii sheegay. Hadda ka horna la igu yiri wuxuu ahaan jiray wariye oo afka Talyaaniga turjume oo la yiraahdo ninkaas magaciisa Roberto waxa uu la hadlayay gabar raxan weyn ah oo ka hadlaysay beelaha raxan weyn markii laga soo saaray gobolka Sool magaalada Laascaan oo ay soo saareen dowladda Somaliland oo ay ka soo barakiciyeen dhulkii ay degeen oo ay ku noolaayeen 30 sano. runtii Roberto gabadhaas isaga oo la hadlaaya ayaa wuxuu dhahay waxaa tiri raxan weynta meesha tagtay Laascaano ee laga soo eriyay waxay ahayd in dusha looga kaadiyo oo la najaaseeyo. gabadhu way tiri dabcan hadalkaa laakiin uma ay dhahaynin xumaan. waxa weeye waxa qaaday dhiigga, waxaa la galay qiiradii. waa qof dumar ah dabcan qiira ay qaaday xilli ay waxay ahayd dhiiggeedu uu kacsan yahay. marka waxa ay ka xumaatay in dadkeedii oo silcaayo ay aragto caruuro yaryar, dad waaweyn, dad sidii xoolihii maxaan ku rahaa gawaarida xoolaha lagu qaado lagu guray, dad lagu daadshay xuduudda maxaan ku raahdaa ii sheeg Puntland dhanka koonfurta Gaalkacyo sida la sheegayay ama aan daawanaynay. marka gabadhaas xumaan ulama jeedin hadalkaas dusha in looga kaadiyo la najaaseeyay ahayd markay dhahaysay. xanaaqa ayaa ka keenay iyo qiirada, waana qof dumar ah. laakiin waxa uu yiri Roberto waxa uu dhahay waxaan ogaaday kuye najaaso inaad adiga tahay kulaha markii aad tiri ogaadeen ayaa i dhalay. iyo waxa uu yiri oo kale afka raxan weynta siday u taqaano ayaaba ka yaabay buu yiri. garaameerkina way ku hadlaysaa, ogaadeen baa i dhalayna waa leedahay oo najaaso ah oo sheegato ah. marka iyadaa najaaso ah buu leeyahay gabadhaas. tan kale beesha Digil iyo Mirif raxan weyn waxa uu u diidan yahay in lagu daro gobolka Shabeellada Hoose. sidoo hadalkiisa u dhigay wuxuu yiri ma ahayn in gobolka Shabeellada Hoose lagu daro Koonfur Galbeed, waxay ahayd gobolka Banaadir in lagu daro Koonfur Galbeed. waxa uu yiri gobolka Shabeellada Hoose waxaa la geeyay meel carro gaduud ah iyo Baydhabo. halkee iska soo galaa meel carro gaduud ah iyo gobolka Shabeellada Hoose buu yiri. wuxuu yiri gobolka Shabeellada Hoose waxay u qalmeen inay gobol gooni u taagan noqdaan iyo maamul goboleed gooni ah ayay ahayd. marka ninkan Roberto sida la sheegay dadku sheegeen waxaa la yiri waa nin dowladdii Soomaaliya u soo shaqeeyay, waa nin dalka Talyaaniga ka shaqeeya oo I don't know turjumaanna ah baa la yiri, wariyana ahaan jiray, luqadda Talyaanigana ku turjuma wax. marka nin weynna weeye markaan arkay isagoo hadlaaya, oday weyn oo cimri ku jira oo haddana 2 beelood oo Soomaaliyeed midna caayaya oo najaaso ku sheegaya iyo sheegato, midna u hiilinaya. waxaas waa wax laga fiican yahay qof weyn oo cimriga ku jira
in uu waxyaabaha caynkaasa uu ku hadlo ama caqligiisu inuu siiyo in uu sidaa u fekero ama uu hadalkaaba uu ka soo baxo waa wax aad iyo aad looga xumaado runtii. tan kale ogaadeen maxaa keenay iyo gabadha hooyadeed meesha caqli shaqaynaya hadduu jiro ama xishood in yaraba hadduu ku jiro odaygaas weyn ee cimrigaa ku jira ma ahayn inuu gabar maxaan ku irahdaa gabar yar uu dhali karo uu weliba hooyadeed sii maago oo qof dumar ah waayeel ah hadday doonto maanta ah in uu sii maago qof waarid ah oo waayeel ah inuu sii maago ama gabar yar uu dhali karo. gabadha yar ee hadlaysa waa gabar yar uu dhali karo gabadha yar ee raxan weyn in uu sidaa ula hadlo ku sheego iyadaa najaaso ah uu dhaho ma aha maadaama ogaadeen dhalay waa najaaso. ogaadeen waa beel Soomaaliyeed waa dad xalaal oo Soomaaliyeed sheegatana ma aha waa Soomaali biyuur ah dadkii Soomaali xoreeyay weeye. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ayaa ka dhashay oo xabashi la dagaalamay oo la dagaalamay Talyaani iyo Ingiriis iyo Boortaqiis iyo cid walba oo wadankan ku soo duushay. waa dad Soomaaliyeed oo wadanka Soomaaliya kale magac iyo sharaf iyo muunad ma aha in najaaso lagu sheego. najaaso sideedaba waa khalad. gabadhan yarna waxay u tiri waxa weeye waa qof dumara waana qof yar oo dhalinyaro ah runtiisaan u jeedo waa qof ay qaaday qiiradii xumaana uma ay dhahaynin ee waxa la galay waxa weeye xanaaqi iyo qiiradii iyo maxaan ku irahdaa may dhulka iska qaadaan. hadalladeedu way badnaayeen intaas kaliya ka soo qaatay hadallo badan oo maxaan ku ay leedahay kula hadlaysa dadkeeda ay leedahay dhul waaleediin dhul ilaah baa in siiyo aada dhulkiini baa jirtay. ninkan laakiin muxuu soo qaatay inta yareyd maa dusha looga kaadiyo najaasada ay dhahayso ayuu soo qaatay. intaas ayuu wuxuu ka raadiyay wax yar isagoo malaha ogaadeen u dan leh. war ogaadeen adigu maad u bareedhid toos maad u caydid Roberto ninka la leeyahay ogaadeen ma toos u caydid oo u bareedhid intaad gabar yar oo miskiinad ah oo maxaan ku irahdaa aad dhali karto 100 jeer oo awoowo u noqon karto aad ugu soo gabanayso reerka Soomaaliyeed Islaameed oo najaasada ku sheegayso oo sheegatada ku sheegayso. waa khalad waxyaabaha qaar aad ku hadashay nin yahow waan ku arkay dhowr jeer adoo hadlaaya mar walba cantar baqash baad ku hadashaa caqli qof weyna ma lihid dadkana waad caydaa qabaa'iladana waad caydaa. war subxaanallah waan yaabay ogaadeen maxaa meesha keenay maxaa ogaadeen keenay maxaa gabadha hooyadeed in la caayo keenay meesha. gabadha hooyadeed maxay kuu dhintay ogaadeense maxaa ka dhigay najaaso. raxan weynba waad u diidaysa najaasadee ogaadeen maxaa najaasada ugu ogolaatood u leedahay ogaadeenaa najaaso ah reer abtiga hadday ogaadeen ku yihiin ayagaa najaaso ah iyo waa sheegatada najaasada ah maxay tahay waxaas. I don't understand dadka qaar waxa ka qaldan runtii khalad weyn ayuu ninkaa weyne odayga ah uu galay waana wax runtii xaal laga qaado odaygaas xaal la garan maayo kulley waxa weeye hadduu xaal garanaayo sida umuu hadleen caqligiisuna ma uu siiyeen in uu gabar yar uu dhali karo uu intuu social media usoo fariisto uu caayo hooyadeedna caayo ka war. qabiilo islaameed oo oon waxba u dhimin oon isaga haysan oo meeshaba joogin. war ogaadeen Somaliland ma degaan Somalilandna ma aha iyaguna kama soo saarin laascaano maxaan ku irahdaa raxan weyn. maxaa keenay inaad ogaadeen caydo maxaa sababay inaad ogaadeen caydo taasaan anigu la yaabanahay runtii taasaa yaabka igu weyn igu noqotay. waa najaaso ku yahay war yaa ilaahay yaqaan war yaa ummadan Soomaaliyeed caqligii baa baaba'ay caqli ma jiro. waxaa maqli jiray caqli ka cirow iyo caqli maxaan ku irahdaa iyadoo dadku ku maamahan Soomaaliyeed yaa caqli ciyaal waxaa maqli jiray caqli ka cirow iyo
guud qalbi ka ciyaal marka ninkan qalbigu ciyaal ka yahay caqli ma jiro caqligu ciyaal ka yahay marka guudka ciro weeye guudka kaliya ka cirooba timaha ayuu ciro ku leeyahay kaliya caqliguna waa zero intaasuu la eg yahay gabar hooyadeed islaan waayeel ah I don't know xataa inay noosha in kale allahu aclam buu gabadha yarayd na uu ku caayaya hooyadeed uu caay u samaynaya qabaa'ilo dhanna wuu caayaya islaameed oonba meesha ku jirin somalilantii soo saartay raxan weynna aan ahayn shaqana aan ku lahayn buu caayaya uu najaaso ku sheegaya iyo sheegato bal ilaah baan idinku dhaarshay Soomaaliyeed arka gardarrada intaa la eg gafka intaa la eg ijaafada intaa la eg bal arka ninka weyn wax uu ku hadlaayo caqliga hooseeya ee foorara oo uu meesha la soo fariistay bal arka iyo gardarrada cad oo aan geedka la isugu soo gaban ee uu beesha ogaadeen uu ku caayayo uu ku aflagaadaynayo uu najaasada ku sheegayo najaaso cidna looma ogolaado gabadhan xataa inay beesheeda raxan weyn ay ku sheegto najaaso khalad bay ahayd balse xanaaqa la galay gabadhan xanaaqa ayaa la galay spiritka runtii ku kacay iyo maxaan ku yiraahdaa madax xanuunkii ku dhacay iyo dhibaatada ay dadkeedii ka naxday ayaa meeshaas la gashay inay caydo si kale ayaa waxay ugu sheegi karta laakiin si kale waxay ugu sheegto malaha way weyde oo waxay dhahaysa xataa waa ka daalay si kastaan wuxuu ugu sheegay 100 jeer baan la hadlay bay tiri kun baan la hadlay bay tiri okay gabadha xumaanka may wadin anagu saasaan u wada fahanay qofkii caqli lahna sidaas u fahmay haddii run la sheegin hadalku xumaan umay wadin gabadhaasi hadalku sida ay u dhigtay yaa waxay ka waday wax un wanaagsan iyo dhulkiini aada dhulkiini dhista dhulkiini maal gashada ka taga dhulka kan leedinka riyaay leedinku bahdilaayo ayay lahayd gabadhu hadalkeedana yaa in uu u fasiro si kale su u caayo ogaadeen iyo hooyadeed isagoo ogaadeen u dan leh yaa ma ahayn runtii ninkan wuu khaldamay ninyo Roberto waad khaldantay you have to ina apologize ka soo bixisid najaasada aad ku sheegtay beesha ogaadeen gardarrada cad aad ku maagtay iyagoon Somaliland ahayn iyagoon ahayn kuwii soo qaxiyay iyagoo aan shaqo ku lahayn in aad maagtay ood cayday ood meel uga dhacday ood u gaftay apologize ka soo bixi nin weyn baa tahay iskuna xishood hadalladaadana control aad ku hadlaysid meelo badan baan kugu arkay adigoo caytamaya oo si xun u caytamaya I don't know you are maybe something wrong islaamiya Soomaaliyay arrintaasaan kasoo hadlayay oo gabar ay ii soo dirtay ay ugu tiri please iga gaarsii ummadayda ogaadeen iyo ummadda Soomaaliyeed khaladka nalaga galaayo oo ninkaas Roberto naga galaayo. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.